gabar yar oo saqiir ahayd isla markaana dhawaan la sheegay in ay dhalatay ayaa waxaa la soo dhigay xalay luuqan iga dambeeya xaafadda raadeerka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in dadkii markaasi amaba hooyadeed ay halkan ku soo tuurtay iyadoo jirdil xoogan loo geystay ilaa ay dhimatay kadibna lagu soo tuuray isla markaana la soo dhigay luuqan oo u dhaxeeya laba guri oo halkan ku yaala sidoo kalena markaasi la dul saaray qashin digsina madaxa markaasi loo geliyay dhacdadan ayaana xalay waxa ay ka dhacday isla markaana gabadhaasi yarta ah saqiirta ahayd la soo dhigay xaafadda raadeerka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho Fardowsa Cabdullaahi Xasan waxa ay ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay ee ku soo baxay meydka yarka ah ee canugta yirista ahayd ee halkan la soo dhigay waxay ka mid tahay dadka dariska ah waxa ay nooga warantay ama goobjoog uga warantay falka halkan ka dhacay iyo gabadha saqiirta ahayd halkan la soo dhigay walaal anigoo ka imaaday xaafad gabar ah oo inta maraayo aalay dhaa cunug meeday luuqan yaalo cunuga markaan fiiriyana maskaxda ilaa dhulcaan dhan waa kala barneed wajiga dhan waa isku dubnaa indhaha oo ka baxsanaay mara ma saarneen jawaan yiriisa aasas loo soo saaray digsina madaxa uu jiray oo bahal jajaban marka waxaan ka codsanayaa inuu taas ilaahay kan kara ku rido ibidu waa ku dhagneed sida ibidi oo uu dhashtay xudunta ilaa ibidu way ku dhagneed laakiin maskaxda ilaa dhinaan ka bilaaw waa kala barneed mara ma soo saarin gabarena ahayd dhanka kale qaar ka mid ah dadka xaafadda isla markaana ahaa dadkii ku soo baxay gabadha yariista ah ee saqiirta ahayd halkan la soo dhigay qashinka la dul saaray isla markaana meydkeeda halkan la soo dhigay waxay nooga warameen falkan argagaxa leh ee xaafadda xalay ka dhacay xalay meeshan waxaa ka dhacay arrin aad iyo aad u foolxun oo mucjiso ah gabar yar oo saqiir ah oo xilliga umusha ku jirto oo ibideedii weli ay ku dhegan tahay ayaa meesha la soo dhigay iyadoo si aad iyo aad warxan darro ah mataqaana wajiga looga burburiyo dhibaato loogu geystay waxaa ugu darnayd markii meesha la soo dhigay waxaa saarnaa jaqaf waxaa saarnaa kartoon madax waxaa ugu jiray digsi wajiga waa uu ka burbursanaa mataqaana ilmo yaroo meesha ku ciyaaraya luuqa waxay ku galeen igu cararay way ku kufeen way noo soo sheegeen marka annaga meesha tagnana arrintan mucjisaan la kulannay iyadoo laga yaabo markii hore si qalad oo mataqaana misaga ay ku dhalatay haddana markii dambe dembi ka culus ayaa la galay oo ah in qofkii la dilo marka waa soo saarnay bannaankan keennay halkan mataqaana ardayda daaginta gadaasheedaan soo dhignay waxaan u yeernay waaxda degmada qoladii ammaanka qaabilsanaad waxaan u yeernay booliskii waa tusna wax meesha ka dhacay marka arrintaas aad u faash xunaa ka dhacday oo saqiirkaas dhibkaas loogu geystay waxayna ahayd gabar yar oo ibidii xataa mataqaana maamadu ay ku dhashay ay dhinac taalay xudunta ay ku taalo madaxana si xun looga burburiyey arrintaas meesha ka dhacday meeshaan waxaa ka dhacay gabar yar oo umulaho yiriis oo markii la soo dhalo xudunteeda ku taala halkan lagu soo tuuray arrin aad u naxdin badan ay ahayd oo dadka dhan ay la murgoodaan marka deenacday naagtii dhashay inay islaamka iska siideedaan masaajidka ilaahay ay dhigtamaan inay tuurto ma ahayn wajiga waa laga jijibiyay dhagaxay ku sii deeyeen digsi madaxay u geliyeen maryana way ku dabooleen jaqafiyo arrin murugo badan oo aad iyo aad looga naxay ahayd waxa ka dhacday arrin aad iyo aad u xun ilmo yariis oo halkan xeebta ku dhadheelayaan waxay arkeen cunug yariis oo halkaas taalo dhagaxay wajiga ugu deysay xitaa aad iyo aad ugu naxna walaa aad iyo aad ugu naxna walaa arrin xun ahayd waan fariir noo qaadatay wajigeeda cunuga meesha ay dhigtay dhagaxayna ku sii deysay wajiga dhan waa ka burbursanaa aniga xitaa maan arki lahayn ilmo yariis oo luuqa ku ordayaan arkeen gabadhii maadaama ay maamulka degmada ay meesha yimaadeen iyagii aan ku wareejinay iyagaan wax xil saarnay waxay dhaheen maadaama aan meesha looga tegi karin dhibaatadan ay ku dhacday qofkiina mataqaana hadda wixii dembiga aan gacanta ku haynan aysan jirin waxaan amraynaa in la aaso xaafadii iyo degmadii iyo wixii dhan iskaashada saasaan lagu aasax ay caruur kama dhicin laakiin dhibaato waxyaabo badan ka dhacay in mataqaana qof dumar oo la dilay meesha meedkeeda lagu soo tuuro aragnay dhowr jeer mataqaana gabar yar oo 9 jir ah naag weyn oo mataqaana qaad iibisa waxyaabo badan waa ka dhaceen laakiin saqiir sidaan loo galay weli anagu maana arag wax nagu cusub aan hore u arag laakiin kolay haddii dadka iska qarso ilaah badan iska qarin karin maamulka degmada Dayniile iyo sidoo kale dadka xaafadda oo iskaashanaya ayaa waxa ay aaseen isla markaana halkan ka qaadeen kadibna aaseen canugta yariista ahayd ee la soo dhigay luuqan u dhaxeeya labadan xaafadood oo ku yaala degmada Dayniile Cabdikariim Cali Aadan warbaahinta goobjoog magaalada Muqdisho